ciidamadan dufcadan hadda soo baxday iyo dufcado kale oo dhaqso loo xareyn doono hadduu ilaahay yiraahdo hawlgalkooda koobaad wuxuu noqon doonaa gobolka Sanaag hadduu ilaahay yiraahdo. dawadayaal waa soo deyn doonaa muuqaalka aad daawadeyseen waxa weeye waa ciidan cusub oo SSC Khaatumo ay leedahay waxa loo bixiyay inta badan wax walba way arkaan waxa soo tababaray Jarnaal Cabdi Madoobe إيش إبعاوي صنط كائن ميسيسو عيدك سمايلنا مقال كاس عيدك عدي على رحته وحاوي أماكي أسر مها قوس بمتانا يستاجل بالواقع مقال كا قيميس كلا عيدا كان توبرك للسي يوحى يقبانا يعني بل يلا ده مقال كا المستر تاليا كسو دغو دفعاده 18 ee guutada inta badan oo ka tirsan ciidamada daraawiishta SSC Khaatumo oo u diyaar inay gudato waajibaadka ka saaran deegaankeeda dalkeeda iyo dadkeeda maanta meeshan u taaganahay aad iyo aad maaragtay duwan tahay maanta waxaanu ka hadlaynaa wax kala maaha gobolkii Sool baa la xoreeyay cayn waa la wada xoreeyay Sanaag intiisa badan waa xor meelo yar oo maaragtay sida laga saaray aad iyo aad marka si guud waxa maaragtay maraaxisha maanta aan ku jirno iyo maraaxishii hore aad bay u kala duwan yihiin marka waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajra ka siiyo guud ahaan dadkii u wada istaagay odayaal lahaa waxa maaragtay ciidan lahaa cuqaal lahaa wax garad lahaa saraakiil lahaa guud ahaan aad iyo aad bay u wada mahadsan yihiin dadaalkeennuna waxa maaragtay halka inuu ka eg yahay maaha dadaalkeennu iyo hankeennu inta uu ka sareeyaa tusaale ahaan gobolada aan ku noolnahay SSC Khaatumo oo kaliya maaha mas'uuliyadana saaran guud ahaan waxa waa Soomaaliya waxaan ognahay dad Soomaaliyeed oo muslimiina oo masaakiina oo waxa maaragtay guryahoodii iyo deegaamadoodii lagu dulmeeyo marka waxaanu leenahay mas'uuliyadana saaran iyo hankeenu ma aha gobolada SSC Khaatumo meel allaale meeshii qof Soomaaliyeed ama waxa dad ummad Soomaaliyeed ay ku dulman tahay waxa in wax laga qabto waxa ciidamadeena u wada taagan yihiin waxaan hadalkay ku soo koobay oo ku soo ururinaya waxa jira oo wada ognahay oo waxa iska inoo saaran maanta oo noo baahan wax ka qabad u baahan waa gobolka Sanaag qayb kamid ah gobolka Sanaag qayb kamid ah oo wax ka waxaan fiirin inaad si fiican u daawateen Cabdi Madoobe hadalkiisu wax kamid ah ciidankan ma aha ciidan lagu talagalay SSC Khaatumo oo kaliya waa ciidan lagu talagalay meel walba oo Soomaali ay joogto lagu dulman yahay in lagu xoreeyo wala jeedo boorba iyo awdal dhibaatada ka taagan in lagu xoreeyo waa dadkaas way dulman yihiin dhibaato haysato ehelkoodii dadkii qaraabada ahaayeen baa dhibaateynaya cid ka qaban karta ma taqaanay marka ciidanka SSC Khaatumo waxay access u yeelan doonaan in dadka degan awdal in ay dhalinyar intay keenaan loo tababaro ciidan lagu kaabo ee howlgalaan وهذي وحسك عينا يوم مركان سيد حكوليه عبد المدوبي أنه ديار برقنا هاي إن نقرب استهل عدول بقى الصومالي ماشي كنت المنطقة إن نقرب خبر SSC Khaatumo سنة كهر سيد بيهد سنة كهر سيد بيهد حل كان أخر ومركي أنت جوج عبد الله صوب حي حالته متخانة أنت كنت تبالتقي إيشرين لكن دورهم إيشين وحبة إيشين أو dadka la yaabana oo la maxad ciidoono hadana waxa weeyo afan dafcooyinka ciidanka soo baxayo mishaarkooda qaadanaya nidaamka ku joogo laba dawlad oo isbarbar yaala iyo Soomaaliland iyo SSC maantiga noqdeen xitaa hadii qabaa'ilka isku dhacaan iyaga dhaxdooda xalinaya awal meeshii SSC inta xalisa mataqaana in xalin jirto ma jirto maanta waxa weeye awood siman oo ciidankooda meesha doono ka howlgalayo waxay doonaan ay sameynayaan iyo la soo baxay waa wax wanaagsan marka ay dul bahantay ay u doodayeen waxaan doonaynaa annagu waxaan rabnaa oo doonaynaa inaan helno ismaamul ama maamul annaga aan leenahay inaan helnaan doonaynaa oo annaga aan isxukunno waayo isaaqo ma tahay saddex magaalo degaan dawlad bu ka dhigtay wuxuu degaa Berbero
بورم بربرو يو برعو يهرجيسا دولة بكتة يجروا حيدقيهين دور مجال وقوة الله مديجنا يجروا دقيهين المجال كان يجنا يجنا دولة شمال كوا كان يتكون حودي واحد يحوق له سنة وجوري سنة مرة خير وجوري يحوق له سنة شوف لكن واحد كلامات غير كلام بحث مركا استخدمه حتى وحي جلسة دوان دورش جلسة وحد وجدين لما سرقوا من الجارة إن مدفعينها للسيء في الليل لما دي السنة ميل في عمو سوق جلسة حقيقة وحقها نك أصدق وحقها نصيب بدن إيضا حالة أدق تحي وموها ماشي علاقة سقطه وعيد وجود بكرة الله هين يعني تلا قبت دورشو يلا نك الداري دورشو تلا قبت نك لودي بحلكة مركبة السنة تاع المبلغ الفردي فجح كما تختي دبوا بأركيبه سؤال روسي انتي تجان ماشي هاد انتي تجان اوك oo qorlugu tageen oo isku urursadeen iyo wax baqawn waayeen si kasta sameeyeen ciidan kasta abaabulay wax kasta sameeyeen waxba qaban waayeen waxa way marka garabkooda caadi ma tahay looga baxay xaalad waxay galeen marka adag oo aan caadi ahayn hada Soomaaliland gudaheeda maxaa ka socda doorashooyinku waxa la soo haystaa xisbiyadii idinka jabiyay la soo haystaa oo doodayaan nimanka mucaaradka ha waxay leeyihiin ciidankan waxa ka soo cararay kulmiye maadaama iyaga ay xisbiyahan ay hayeen talada dalka iyaga ka soo cararay ayaga beeynihiin iyaga ku sameeyay nimanka kale waxay ku doodayaan ciidanku waxa jiray wadadii maadaama mataqaana uu lahaa war ka baxa dagaalka war hayeelina war hadiriirina ay lahaayeen iyaga jabiyay على كل حال أم حاجة هلا إذا كان هلا إذا عيد سوما تبين يا تبي قوة يباور هرتبة تبي إيوه ظلم يهجر دام يجي سنة إلهي كسر تاسع مركا لو حيته قول أنا عليه قول به حقيقة بقول هذا وين قولي بقى أنا يرى به وأنا واحد مثلا لو بهنا حتى لما كان غير أوضل وحاول دبعتها يهجر دامدا يقلب كارلو هايو one day وحاول يكسر به هذا لما كان دبعتها شن إتفان أي تيه كجرين أو أي سن دنيا الجوجين آخر الجوجين مال حبتها إتجمع ورا الصنايم ولا قد حصل لنا شيء إتفان كذب بيبتها بلا رجل أو قرتين أو هيت وجاري كذب يكسر به ما لما كان صار هون السوق عليه سبعين دونا يقبضهم مركا هدي سمال اللي نواجي سمال اللي وننكس أنت سؤاليه يا ماني سوق أو صومالي متهنا اللي قبل النقارية أنت أصلا داود يرجع على استيقنا برامج كان نقول وداقو لو وداقة صاحبتي